kulankana ammaanta qabsoomay waxa uu ahaa kii igu ballaadhnaa ee lagu muujiyey qaylo dhaanta abaaraha isla markaana la qorsheeyay in lagu baadigoobo qaadhaan aad u ballaadhan oo dadkaasi abaaraysan wax loogu tari lahaa kulankan oo ahaa mid aad u ballaadhan ayaa waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda golayaasha qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi lagaga yaboohay qadaro lacag iyo raashin isku jira oo ilaa iyo inta haatan la og yahay aan waxba ka tarayn baahida goobahaasi taalla qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda iyo xildhibaanada golaha baarlamaanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa haddayna shabaakeenaa taana waan gooni wayna sheegay boqolkiiba laba iyo bar baa loogu daray cashuuraha war boqolkiiba labadii bar lagu darteen loogu daro maanta cashuuraha dowladda waa soo maaliyadda cashuuraha ugu kordhiyay intaa ku daro maanta waliba barka hal joogtaa looga dhigo dadka oo hogaamiye u yahay ama guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland neraad ayuunbaa ku biirin doontaana cidda mas-uuliyadda ugu weyn lihi waa iyaga waxay dhibaatada jirtana sanadkan waan arkay 4 sano ma ahe 3 sano ma ahe 4 sano abaar baa jirtay waxa iska yaraa helaysan iyo durdurkii midna ma jiro waxaan xusuusnay 2000 sheekul baladka magaalada Boorame Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar oo ka waramaya qorshaha ugu haboon ee dadkaasi abaaruhu taabteen wax loogu tarayo ayaa waxa uu yiri muddo 6 bilood in la yiraahdo dadka gacanta ku qabanno 6 bilood aan diyaarino barnaamijyadii badda ay wax kaga soo bixi lahaayeen ay ku kalluunsan lahaayeen ee biloodna hal lagu baro mawduucayga saasoo kale ayaa mas'uuliyiinta ururka haweenka qaranka ee NAW iyo qaar ka mid ah haweenka magaalada Boorama waxa iyaguna iftiimiyeen qorshayaal haweenka u gaar ah kuwaas oo lagu ururinayo qaadhaan dhinaca abaaraha ah Cabdullaahi Ali Yuusuf, Cable TV, Boorama.